Maraykan waxa jooga dad aad iyo aad u fara badan oo aqoonyahan wada ah aqoonyahan aan la xisaabin kareyn waxaad arkaysaa nin 30 jira oo PhD-sta tara male inta PhD Soomaali oo 30 jira waxa jira niman odayaala oo expert ah oo aqoonyahana ah oo jaamacada Maraykan waligood ka shaqeynayay oo hay'ado waaweyn u soo shaqeeyay oo professor wada ah oo hadana qurbihi iskaga maqan oo meelaha halkaas iskaga shaaheynaayo ka sheekeynaya dadkaas oo dhan iyaga waxay u tahay faa'iido weyn haday soo dhoofaan oo dadkooda wax u qabtaan oo dhalinyarada dhiirigeliyaan oo jaamacadaha class ka dhigaan xitaa haday one class ay ka dhigaan xisad kaliya ka dhigaan faa'iido weyn bay u noqon lahayd iyaguna ay dalxiis u noqoto oo ay soo dhoofaan oo hawada soo bedelaan anigu waxaan garanayaa dad aan 100 ka yareen oo dadka deegaanka ah oo qurbaha wada fadhiya oo wada expert wada ah oo dadka wax badan ka bedeli kari lahaa oo isna halka iska jooga dadkaas waxa loo baahan yahay inay yimaadaan dadkooda wax u qabtaan iyaguna ajir iyo xasanaad bay ka helayaan dadka kalena waa guul bay ka gaadhayaan kelmad aad u sheegtay yaani kelmad kaliya oo maaragtay khayr aad sheegtid oo aad qof uga faa'iideysid wax xasan cilmi dhan aad qof u faa'iideysid wax weyn buu taraya marka dadkan waxa oran la soo dhoofa dadkeena wax u qabta meel kasta joogtaan gobol kasta oo u dhalatay gobolkaaga aad dadkaaga wax soo bar halka aad fadhida waxba ku qaban mayso aadan waxba cid u faa'iideynin maalinta dadkii aad u tagtay wax qabsadaan baad ogaanaysaa wax aad u tartay dadkaaga qurbajo dib ugu soo laabo dalkaaga oo u faa'iideey dadkaaga si isbedel iyo horumar looga gaaro dhanka siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo dhammaan arrimaha bulshada ee kale khibradaada iyo dhaqaalahaagu waxa ay muhiim u tahay kobcinta wacyiga iyo waxqabsiga bulshada gudaha fariimaha iyo warbixinaha xarunta hadaf